السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي أرجعنا مركز أي جوغان وأنا سلامي سلام كدب. maanta waxaa ka hadlaynaa arrin loogu baahan yahay inaan ka hadalno oo maaragtay bulshada u baahino. waa arrinta haysata culus oo madax barar oo gabadhiisa oo yarad ka xanuunsan oo u dhexeysa nolol iyo geeri, waxayna ku jirtaa isbitaal Nairobi. marka bulshada weynta oo ka codsanaya inay caawiyaan, oo qofkii ducada ku caawiya waa loogu baahan yahay, qofkii gacanta furan oo lacagtiisa ilaa lacagta ku caawiyo. marka culus oo madax barar ayaa hadda noo sheekeynaya sida loo hayo gabadhiisa cudurka laga helay iyo qaliin waa waqtiga ee qaliinka ay galayso. marka ilaas caawino waa shay loo baahan yahay. hadda ay caawisiin anna maaragtay waa la caawinayaa, bal marka qaliinka ay galayso iyo waqtiga wax walba sana faahinayo, bal wax yar aawada dhageysano. culus dadka qaar way ogaayeen asxaabteeda ah, waxa waaye waa ii soo duceynayaan qofka ugu horeeyay, inkastoo ay ii imaan doonaan ayagana kuwa kale. waxaa tahay qofka ugu horeeyay ee ii imaaday, runtii aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa. dabcan Abuukar adiga xaaskaaga waxaa idinkaga bartay wanaagga iyo inaad dadka farxadooda ka talisaan. maxaa idinkan isbitaalka? wallaahi isbitaalka waxaana keenay xanuun gabadheena ku dhacay. runtii isbitaalka ma aha hotel ama guri, waxa waaye alla ku badaleeyaa wax ma sida walaalkaysan wariye ayaa beesha booqday asagoo gabadhi yarta dhabta u saaran tahay oo isbitaal wala reality waa isbitaalka ku jira. maaragtay marka xaaladda wala waa adag tahay, bal culus oo asii wadaysan waraysiga laga qaaday xanuunka salka waa marba waxa geenin isbitaal marka isbitaal kale. adiga ugu dambeyntii bishaan hadda ku jirno waxa dhacday gabadhi in xaaladeeda ka soo dartay. waa gartay oo maaragtay ay neefta oxygen qaadan weysay, oo maaragtay heer indhaha inay cadeysay ay gaartay. aniga waxaa xaafada joogno kadib ayaan la soo cararnay, waxaana keenay halkan. waa gartay marka isbitaalo badan ay geeyeen waa jireen, laakiin waxa exactly hay anaga ma ogeyn. waa sida uu ku waramay. marka wuxuu yiri dad baa ayaa soo booqday, gabadha way ka xanuunsan tahay, waa sida uu sheegay. marka ilaahay waxa uu barinay inuu gabadhiisa caafiyo, oo qof kasta oo islaam ah oo waxa uu wadanayo ninkaas culus oo madax barar u gurmado oo gurmad ilaahay ayaa waxa uu gurmado, laakiin gurmadka waa bini'aadamnimo la iska baahan yahay. marka wala asiibna muuqaalkeena culus oo mar walbo xanuun aniga xataa maaragtay waxaan fursado badan u waayay inaan maaragtay asxaabtaadi inaan maaragtay social media waqti alla qaad, sababtoo ah gabadha habeenkiina way qandaysan tahay, maalinkina waa qandaysan tahay sometimes. habeenkiina waa la soo jeedaysaa, maalinkina waa la soo jeedaysaa. maalinkina waa lagu qasbayaa, mar ama isbitaal taagan tahay, mar gurigan waxa waaye waa la soo jeedaa. runtii waxa dhacday marka guntii gunaanadkii ugu dambeyntii in maaragtay dhakhtarku uu yiri baaritaan fara badan ha lagu sameeyo. waxaan ka shakisanahay gabadhan caloosha. waa gartay marka baaritaano ilaa wadnaha xataa wuu noo diray, dhowr baaritaana lagu sameeyey. kii wadnaha iyo kan caloosha ugu dambeeyey. kii wadnaha alxamdulilah waxa la yiri wadnaheedu waa okay, wax dhiba ma qabto. kii caloosha ugu dambeeyey kaasaan geynay, indhaheena aan ku arkaynay ma waxna lagu sheekeynay. waxa waa caloosheeda waxa lagu shubay biyo. sida loo sheegay gabadha naqaska ayaa ku dhagayo, oo waxa waaye waxa ka jiran tahay sababaha. marka cudur aad iyo aad u xun waaye hadda isbitaalka ay joogaan. marka ilaahay maaragtay walaad ha caafiyo. waa cudur halis ah, qofka sababa la galo waa maaragtay waa dangerous. marka hadda qalin ayuu sugayaa, bal si uu muuqaalka waraysiisa kan iyo wuxuu ku joogtaa xanuun baabi'iye. badan way qaadanaysaa oo 10 maalmood u soconaya oo subax iyo galab la duraayo. marka anaga intaas kaliya haday aan leeyahay 10 maalmood oo isaga diri lahayd haduu Ilaahay noo caafin lahaa. dhakhtarkii waxa uu yiri baaritaanka markaan soo sameeyay waa degdeg in qalin lagu sameeyaa. waa gartay baaritaanka in qalin heshaa berri maan berri dambe qalin lagu sameeyaa. hadda anagana meeshan wax ka yar 2 maalmood waa in gabadhan waa in qalin heshaa, hadii kale sababaheeda maartay dhibaatooyin waaweyn qabaan, damage qabaan, dhaawac weyn ku yaala. marka waxa laga yaabaa in hadhow ay noqdaan
kuwa aan maaragtay shaqadooda gudanin soo marka xaalad saas u jirtaa gabadhana way ku qasban tahay inay gashaa qalin ay gashaa baritoole inay qalin gashaa dabcan daawadayaal qofkii Kenya joogu jira ama imankaba jooga ayaa yaqaan isbitaalada iyo dabcan markuu qofka xanuunsado iyo marxaladaha la maro walaalkeen Abuukar Culusow waxaad ugu barateen inta badan farxad iyo qosol ayaad ugu barateen waa dareemi kartaa markaa tahay aabe isla markaana ilmihii aad dhashay ka xanuunsan yahay